السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان صاحبة كحرن عدور ميديا كسو دوادا برامج كان عيارها ما انتقض بدأ كسو قادون وحاكا مده كلما كترسن بريمير ليج هوريالك اسبين iyo Serie A ayaa la ciyaari doona maanta barnaamijkeena ayaa uga baga doontaan Gabriel Jesus oo dhaawac soo gaaray imiso garoomada ka maqnaan doonta ayaa barnaamijkeena uga baga doonta macalinka Real Madrid Zinedine Zidane oo soo saaray liiska xidigaha oo kaga hortagi doona Real Betis sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa Jordan Klopp oo xaqiijiyay xidig kooxdiisa kamid ah oo seegi doona kulanka Arsenal waxaa kaloo la soo saaray 25 difaac ugu fiican taariikhda Premier League barnaamijkeena ayaa u baga doontaan ugu dambeynna Philippe Coutinho dhabarkay ay u qaadan doona Barcelona qodobadaas iyo qodobo kale dhowr ayaa barnaamijkeena kaga baga doontaan saaxiibayaal ku soo dhawaada Cadwar Media daawada ku soo dhawaada Cadwar Media fadlan hadii ay tahay markii kugu horeysay subscribe noo sar channelka la comment saaxiibadan la wadaag mahadsanid maanta waxaa la ciyaari doonaa horyaalada Yurub kulamo ka tirsan hadii aan isla eegno Premier League waxaa wada ciyaari doona kooxda Brighton iyo Manchester United kulanka ugu soo horeeya kulankan ayaa soo gali doona 2 daqiiqo ama 8 saac bar duhurnimo kooxda Manchester United ayaa marti u noqon doonta kooxda Brighton kulan ka dhici doona garoonka Amex Stadium kana tirsan toddobaadkii saddexaad ee Premier League Brighton Half Albion ayaa raadinaysa inay gaarto guusheedii afraad shantii kulan ee ugu dambeysay Premier League ay garoonkeeda kula ciyaarto Manchester United madina in laga badiyo 2 kulan ugu horeysay horyaalka tan iyo 1993 Red Devils ayaa raadinaysa inay ka soo kabsadaan guuldaradii ka soo gaartay naadiga Crystal Palace isla markaana ka fogadaan in laga badiyo kulankoodii labaad shaxda macquulka ee Manchester United kusoo gali karta ayaa 4-3-3 digay ayaa shabaqada gali doona halka Harry Maguire Lindelof ee daafaca dhex ciyaari doonaan Wan-Bissaka iyo Luke Shaw ayaa midig iyo bidix kala ciyaari doona naqadka dhex waxaa wada ciyaari doona Pogba Fernandes iyo Matic halka weerarka iska kaashan doonaan Greenwood Rashford iyo Martial sidoo kale kooxda Chelsea ayaa marti u noqon doonta kooxda West Brom kulan ka dhici doona garoonka West Brom ee ku ciyaarto kana tirsan toddobaadkii saddexaad ee horyaalka Premier League West Bromwich Albion ayaa doonaysa inay gaarto guushoodii ugu horeeyay ee Premier League 7 kulan ee ka hor yimaadeen kooxda Chelsea markii ugu dambeysay ay garaaceen Blues waxa ay ahayd bishii May 2015 macalinka Chelsea Frank Lampard ayaa 100% rikoor fiican ka haysta kulamada oo ka hor yimid West Bromwich Albion inta uu tababaraha ahaa isaga oo ka badiyay labadii kulan oo ka hor yimid inta uu tababaraha u ahaa kooxda Derby County kulankan ayaa soo gali doona 7 barka fiidnimo waxaana Chelsea ay ku ciyaari doontaa falsafada noocan ah 4-3-3 waxaana shabaqa ku soo bilaaban doona Kepa Arrizabalaga waxaana daafaca dhexe wada ciyaari doonaan Thiago Silva iyo Courtois Zuma halka daafaca midig oo ciyaari doona James Marcus Alonso ayaa ku soo bilaaban doona kulankan leeyahay halka qad dhexe wada ciyaari doonaan Kante iyo Kovacic iyo Kai Havertz garbaha waxa wada ciyaari doonaan Mount iyo Timona halka lambarka 9aad ee weerarka ciyaari doona Timo Abraham sidoo kale waxaa jira kulamo kale oo ka tirsan Premier League waxaana afka isdari doona Crystal Palace iyo Everton soo wada badiyay galabta ayuu soo gali doona 5 galabnimo waxaana lagu wada ciyaari doona garoonka Crystal Palace kulanka ugu dambeeyna wuxuu soo gali doona 10 fiidnimo ee cawada waxa wada ciyaari doona Burnley iyo Southampton kulamadaasi wixii ka soo kordha barnaamijyadana ay ku maqli doontaan sidoo kale maanta waxaa jiro kulamo ka tirsan Italian Serie A waxa wada ciyaari doona Torino Atlanta kul ciyaartaas waxay soo gali doontaa 4 galabnimo waxaa kaloo jiro Cagliari iyo Lazio ayaa wada ciyaari doona 7 fiidnimo isla saacadaasi waxa ciyaari doona Sampdoria iyo Benevento kulanka ugu dambeeyay ayaa wuxuu u dhaxeeyaa Inter Milan usha lagu wadahayo ayaa ka hor imaan doonta Fiorentina kulamadaas wixii ka soo bax barnaamijyadan ay ugu baga doontaa insha Allah sidoo kale maanta waxaa jiro kulamo ka tirsan horyaalka Liga Spain waxa wada ciyaari doona Deportivo Alaves iyo Getafe kulankaas wuxuu soo gali doona 2 duhurnimo waxaa kaloo ciyaari doona Valencia iyo Huesca naadiga la yiraahdo wuxuu kulankaas soo gali doona 5 galabnimo 7 iyo barka fiidnimo waxa wada ciyaari doonaan Elche iyo Real Sociedad halka kulanka ugu dambeeya la daawan doono 10 fiidnimo wuxuu u dhaxeeyaa Real Betis iyo Real Madrid kooxda Liverpool Jordan Klopp ayaa xaqiijiyay inuu kabtankiisa Henderson seegi doono kulan adag ee la ciyaari doonaan Arsenal kulan ka tirsan horyaalka Premier League kooxda Liverpool ayaa kulankeedii saddexaad marti gali doonta kooxda Arsenal kulan ka dhici doona Anfield iyaga oo doonaya inay sii wadaan guulahooda xiriirka ah Liverpool ayaa war xun ka heshay qolka labiska kadib markii uu Jordan Klopp xaqiijiyay inuu kabtankiisa Jordan Henderson seegi doono kulanka Arsenal Anderson ayaa dhaawac uga baxay qaybtii labaad kulan ee Liverpool guusha 2-0 kaga adkaatay kooxda
Chelsea kulan ka tirsanaa Premier League. Klopp oo arintaas ka hadlay ayaa yiri Henderson weli kuma soo laaban tababarka, sidaas darteed kulanka Arsenal ma ciyaari doono. Dhanka kale tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa soo saaray liiska xidigaha uu kaga hortagi doono Real Betis kulan ka tirsan horyaalka La Liga. Kooxda Real Madrid ayaa marti u noqon doonta kooxda Real Betis toddobaadkii saddexaad ee horyaalka La Liga, kulan ay ku doonayaan inay ka gaaraan guushoodii ugu horeysay horyaalka. Liiskan ayaana ka muuqan xidigaha Eden Hazard iyo Asensio kuwaas oo aan taam u ahayn inay ka qayb qaataan kulanka dhici doona cawada. Laakiin waxaa ku soo laabtay liiska xidiga Isco kadib markii ka soo laabtay dhaawac uu ku seegay kulankii Real Sociedad ee la ciyaareen. Sidoo kale waxaa jira kulamo laga ciyaari doona horyaalka La Liga ee Spain, waxaa afkiis dari doona Deportivo Alaves iyo Getafe, waxaana kulankaas soo gali doona 2 duurnimo. waxaa kaloo wada ciyaari doona 5 galabnimo Valencia iyo Huesca naadiga la yiraahdo, waxaana kulanka saddexaad wada ciyaari doonana Elche iyo Real Sociedad oo soo gali doona kulankaas 7:15 fiidnimo, waxaana kulanka ugu dambeeya oo u dhaxeeya naadiga la yiraahdo Real Betis iyo Real Sociedad oo saacada waxay ciyaari doonaan 10 fiidnimo. dambeena kooxda Barcelona ayaa si rasmi u xaqiijisay lambarka cusub oo Philippe Coutinho u qaadan doono kooxda koobaad ee Barcelona. Philippe Coutinho ayaa ka soo laabtay amaah uu xilli ciyaareedkii hore ku jooga kooxda Barcelona isaga oo xilli ciyaareedkan joogi doona kooxda Barcelona. Xidiga Philippe Coutinho ayaa horey kooxda u xiray jiray lambarka 7 ka hor intuuna aadan kooxda Bayern Munich, laakiin lambarkaas ayaa haatan la siiyay xidiga Antoine Griezmann kaas oo haatan xiran doona lambarkaas. ugu dambeynna Philippe Coutinho ayaa kooxda u xiran doona lambarka 14aad oo ah lambarkii ugu horeeyay markuu Barcelona ku soo biray u xirtay, waxaana Barcelona ay shaacisay lambarka 14aad ciyaaryahankan inuu xiran doono.